qofkaas waxay ka ahayd marka wax akhrinta ku soco xagga dambe ha soo eeginba, gadaal ha soo fiirinin ee hore u soco ayay ka ahayd. taasaa marka waxay keentay in uu culayskaas ama dhibaatadaas markii uu wax akhriskiisii dhameeyey la kulmo. Active recall waxay ku haysaa ama ay ku leedahay meesha waa inay taallaa isla xisaabtan. isla xisaabtanku markaa waa maxay? bismillaah, asalaamu calaykum waraxma. waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaa iyo 5 qodob oo maaragtay hordhac ah. ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa hordhacyadii iyo gogol xaadhkii aan maaragtay ugu talagalnay inaan maaragtay uga hadalno barnaamijka Anki ka hor. sababta aan hordhacyada u soo celcelinayno wax kale maaha, wax walbo oo la soo celceliyo muhiimadooda ay leeyihiin. sababta waxa weeye waa sidii aan maaragtay u fahmi lahayn meeshaan ka soconno iyo meeshaan u soconno, oo hadhow markaan barnaamijka dhex galno ma doonayno in ay naga lunto, jihadu naga lunto. wax walba waa in yacni la yaqaanaa sababtay ku yimaadeen, ahmiyadday leeyihiin. marka sababtaasaan ugu soo celcelinaynaa, ahmiyadda ay leedahayna waa taasaa. marka 5 qodob baan rabaa inaan 5 qodob oo hordhacyo kale ah ayaan rabaa inaan ka hadlo. 5taas qodobna waa muhiim in Anki ka hor la fahmo. barnaamijka Anki hortii in la fahmo aad bay muhiim u tahay. 5taa qodob waxay kala yihiin: 1, waa inaan naqaanaa wax la yiraahdo active recall. waa maxay active recall? waa maxay flashcard? waa maxay spaced repetition system? waa maxay forgetting curve? iyo qodobka ugu dambeeya oo ah taariikh kooban oo aan ugu talagalnay inaan Anki uga sheekeyno ama aan uga faalloonno. siduu ku yimid, maxaa loo isticmaali jiray waagii uu soo baxay, haddase maxaa loo isticmaalaa, magaca siduu ula baxay. xog noocaas ayaan insha Allah ku faaqidi doonaa. mid kastoo qodobadaas 5ta ah ka mid ahna wuxuu u taagan yahay muuqaal ayuu u taagan yahay. waxaan kasoo sameynaynaa 5 muuqaal oo kala duwan. sababta aan sidaa u sameynayna wax kale maaha, waxaan diidaynaa in waqtigu nagu dheeraado, oo haddaan isku wada qabanno hal muuqaal aan ka wada dhigno waxay noqonaysaa in waqtigu dheeraado. aniguna dee waxaan iska ahay qof iska sharaxaad badan. marka muuqaalkan waxaan jeclahay inaan kusoo qaato qodobka ugu horeeya oo ah active recall. active recall waa qofka oo su'aal isweydiiya, su'aal iska weydiiya casharkiisa, su'aalahaasna isaga jawaabaya, isagaa iska dhegeysanaya su'aashaas iyo jawaabteedaba. jawaabta markuu bixinayana looma baahna inuu meel kale caawimaad ka raadsado. waxaa loo baahan yahay inuu maskaxdiisa ka raadiyo, maskaxdiisa inuu kaashado keliya loo baahan yahay. looma baahna inuu meel ka fiiriyo ama inuu meel ka daalacdo. waxaa loo baahan yahay in uu si dabiici ah wixii uu soo akhrinayay ee uu soo fahmay uga jawaabo markuu su'aasha isweydiiyo kadib. sidaasaa loo yaqaanaa active recall. haddaba waa maxay sababta ay ku timid active recall? waa maxay baahida loo qabo? maxay faa'iido leedahay? sababta ay ku timid ama lagu keenay active recall waxay tahay kadib markii la ogaaday culaysyo badan oo lagala kulmo wax akhriska, oo qofka wax akhrinayo culaysyo ay la kulmi karaa. culeysyadaas waxaa ka mid ah inuu casharka uu akhrinayo u soo jeedsan waayo. dabcan dagaal ayuu kula jiraa naftiisii inuu u soo jeediyo waxa
waxa maaragtay lagu hawlan yahay uu niyad ahaan u soo jeediyo. Dagaal noocaas ayaa isaga iyo naftiisa ka dhaxaysa. Marar badan waxa dhacda in in naftu ay maaragtay mashquusho oo ay ku mashquusho waxyaabo aan loo baahnayn markaas, taasoo horseedi karta hadhow markii akhriskii la dhammaystiro qofku markuu is yiraahdo bal wixii aad akhrinaysay maanta oo dhan dib ugu noqo oo adoo buugga isku laabaya wixii aad soo fahamtay bal kor ka sheeg inay maskaxdaada galeen iyo in kale. Qofkii waxaa u soo baxaysa in badan oo ka mid ah ama qaybo far badan oo ka tirsan wixii uu soo akhrinayay maanta oo dhan ee uu waqtiga ku soo bixiyay inuusan xusuusan karin oo maaragtay ay ku adag tahay inuu maaragtay dib u soo tufo. Marka qofkaas waxay ka ahayd marka wax akhrinta ku soco xagga dambe ha soo eeginba, gadaal ha soo fiirinin ee hore u soco ayay ka ahayd. Taasaa marka waxay keentay in uu culayskaas ama dhibaatadaas markii uu wax akhriskiisii dhameeyey la kulmo. Active recall waxay ku haysaa ama ay ku leedahay meesha waa inay taallaa isla xisaabtan. Isla xisaabtanku markaa waa maxay? Inta aad ku guda jirto wax akhriskaaga kolba markaad in yar socotaba waxaa lagaa rabaa inaad daqiiqad kooban inaad qaadato oo wixii aad soo akhrinaysay ee aad soo dhaaftay ee aad soo fahamtay inaad maskaxdaada kedis uga dhigto ood su'aalo iska weydiiso adigoon buugga fiirinaynin, adigoon buugga ka daalacanaynin jawaabta, si aad u xaqiijiso bal in waxani ay galeen maskaxdaada iyo in kale. Marka active recall waxay qofka u suura gelinaysaa isla xisaabtankaas inuu maaragtay naftiisa kula dagaalamo oo naftu marka ay dareento in isla xisaabtan uu meesha yaallo oo markaad wax akhriyayso ee aad hore u sii soconayso wax yar kadib aad joojinayso wax akhriskaaga dib aad u soo laabanayso daqiiqad kooban aad qaadanayso inaad wixii la soo dhaafay aad iyada kedis uga dhigto su'aalo ku garaacdo. Waxay dareemaysaa dabcan in dagaal meesha ka socdo, fuujignaan badan iyo taxadarnaan badan bay muujinaysaa. Niyaddeedu markaa waxay u badan tahay inay soo jeediso waana sida loo baahan yahay dabcan. Active recall marka waxay qofka u saacidaysaa in maskaxdiisa uu ku qaato xogta haddii beri ka maalin su'aal la weydiiyana uu si dabiici ah su'aashaas uga jawaabo isagoo aan jawaabta ka fiirinaynin ama jawaabta ka daalacanaynin ilo kale ama meelo kale oo jawaabtaas ku caawiya. Waxa weeye si dabiici ah isagoo adeegsanaya maskaxdiisa ayuu uga jawaabi karaa. Haddaba adeegsiga farsamada loo yaqaano active recall waxay meesha ka saaraysaa ku tiirsanaantii badneed ee uu qofku ku tiirsanaan jiray wax loo yaqaano highlighting inuu qoraalka waxyaabaha muhiimka ah inuu maaragtay calaamadeeyo. Sidoo kale waxay meesha ka saaraysaa ku tiirsanaantii badneyd ee uu ku tiirsanaan jiray inuu casharka ku celceliyo maalin kasta hal ciwaan uu ku celceliyo ama hal cutub inuu maalin kasta ku celceliyo. Sidoo kale waxay meesha ka saaraysaa note takingka ama qaadashada noodka casharada inuu ku tiirsanaado 100% ayay meesha ka saaraysaa. Dabcan waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas laakiin looma baahna in 100% lagu tiirsanaado, waayo tusaale ahaan highlightka meesha waxaa u keenay highlightka anagu waxaan u highlight gareynaa waa inaysan naga lumin oo hadhow haddii beri ka maalin buuggaas aan kala furo ay i fududaan karto inaan qodobkaas si buuxda oo toos ah aan u heli karo oo aysan waqtiga igu qaadanin baaritaankiisa. Macnaha waa in xogta kale ee meesha ku qoran
qormooyinka kale ee meesha ku qoran inaan ka duwo ayaan doonayaa oo qodobkaasi iiga duwanaado qodobada kale meesha ku qoran si ay iigu fududaato inaan toos ugu tago haddii aan u baahdo lacala taasi ka dhigan tahay marka. laakiin active recall waxay ku leedahay maskaxdaada ku qaado wax walba oo su'aal dil weydiiyo kaga jawaab su'aashaas aad iyo aad